barqadii ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinaayo gaajiya u bakhtiya basaasto duntiisu ka boodiyo bulaanye gaajiya u bakhtiya basaasto dantiisu ka boodiyo bulaanye waxbartaan barwaaqa gaarane waxbartaan barwaaqa gaarane. assalaamu calaykum asxaabta ku xiran janaalka Hagardi Tube mar kale iyo kulan wanaagsan. Halkan waxaan ku soo gudbinaa barashada luqadda Ingiriiska. Haddii aad danaynayso barashada luqadda Ingiriiska nagu soo biir mahadsanid. Sidaan hore idinkugu sheegay waxaan qaadanaynaa ereyadaas kusoo dhisanay jumladaha. Maantana casharkeena waa isla kii hore camal, balse intaan casharku gudagelin waxaan ku xasuusinayaa inaad janaalka subscribe iyo like inoo saarto, sidoo kalena aad share gareyso. Casharka markaan qaadano ereyada iyo Soomaaliga markaan qaadano kadib erey kasto jumlad ayaan soo gelinayaa, meesha ayaan kusoo qorayaa. adina waxaan rajeynayaa inaad hal jumlad aad isku soo daydid, erey kasta hal jumlad aad soo gelisid, comment ahaan aad noogu soo qortid, aad ay muhiim u tahay. waayahay casharkeena maanta waa 5 erey ayuu ka kooban yahay, 5taas erey oo aad muhiim kugu ah. waayahay haddii aan casharkeena ku socono ama aan hore u guda galno, 5tan erey aan ku qaadanaynaa abroad iyo absence, absolutely, absorb and abuse. waayahay abroad micnaheedu waa dibad, absence maqnaasho, absolutely dhammaystiran, absorb dhuuqid ama milmid, abuse cay. ereyadan ayaan casharkeena ku qaadanaynaa maanta. waa rajeynaa inaad jumlado commentiga aad soo geliso. haddana waxaan guda gelaynaa qaybta jumladaha. erey kasta oo meeshaan ku xusanna waxaan soo gelinayaa hal jumlad oo qurux badan. adigana waxaan rajeynayaa inaad hal jumlad oo qurux badan aad soo geliso.